videogan waa digniin waaye nin waxaa jira dhalinyartii aad u dhibaateeyey oo maxaa la yiraahdaa wax walba oo ay u suuragelaysay in ay haystaan ama ay ku shaqaystaan gacan mariyay. ninkan waxaa la yiraahdaa Axmed Cabdiqaadir Muuse. videogan idin muuqanayo waxa uu kamid yahay videoyada uu isticmaalay baraha bulshada uu isticmaalay soo ugu suuq geeyay barnaamijka isaga oo dhalinyarta ku dhacay. ninkan isaga ma aha laakiin waa nin uu hore u dhacay videogii uu ka sameeyay arrintiisa kaga hadlayna codkiis uu dul saaray kadibna ka dhigay inuu isaga arrintiisa faaninayo. waxa uu leeyahay ninkaas janaal ay ku jirto si aad u jeedaanba 800 oo qofood kun wax ku dhow magacaas ayuuna la baxay global-ka u jeedaan magacaas la baxay kullaba waan rajaynayaa hadda videogan aad aragtid in mar aad ka mid noqotay asxaabta halkan lagu dhibaateeyay lagu dhacay oo 800 dhowrka qofood ah oo meesha ku jira. dhamaan waxyaabahan aad u jeedaan lacagahan aad arkaysaan waa lacagihii dhalinyartaas laga qaaday. waa arkaysaan waxaas oo lacag ah waa lacagta dhalinyarta laga qaaday kadibna telefoonada laga dansaday oo la baloogay. waa arki kartaa waxaan ku tusinayaa waxaad arkaysaan waxaan waa lacag dhalinyartan waxay kamid yihiin dhalinyartii oo lacagaha ka qaaday maasha Allah waxa maalka shaday isaga laakiin qofkan ma aha qofkan ay furjooga qofka cabanaya dhaqaale loo geystay ninkan uu geystay laakiin hadda codkiisa uu dul saaray waxaan uu ka dhacay in maxaa la yiraahdaa intan arrinkiisa isaga ama shan kaliya ma aha waa kuwa aad tiro badan waxyaabaha uu ninkan dhalinyarta ku sameeyey kan iyo kuwa kale badan baad arkaysaa dhammaan waxay ka cabanayaan dhibaatada uu geystay laga dhab oo isaga loo diray waaye laakiin wuxuu ka dhigayaa inuu dhalinyarta u diray dhammaan waxaan aad u jeedaan waa lacagihii isaga dhalinyarta ay soo direen wuxuu aad u isticmaalayaa videoyada ninkan uu leeyahay uu aad u isticmaalay iyo waxyaabaha analysis isaga uu sameeyo dhalinyarta ka dhaadhicinaya inuu isaga yahay qofku waxaan sameynaya lacagaha inta loo diray dhalinyarada oo haddana hawada uga baxay waaye. qof kasta oo isku day inuu arrinta ka hadlana waxa uu ku sameeyaa isla isaga laftigiisa codkiisa intuu soo qabsado ka dhigaa suuq geyn ka dhigta. arkaysaa ninkan waxaad arki kartaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. codka afkiisa uu lahaan codka isaga soo saaray waa wuxuu sameeyay wuxuu ku aadiyay arkaysaa wax afka laga saaray arkaysaa kala waxaan rajaynayaa iyo kuwa kale isgaarsiin doonaan si ay uga hortagaan khatartan iyo dhibaatadan soo wajahday iyo khasaaraha aad u weyn oo dhalinyarta lagu wado. aadan aga xumahay dhalinyarada doonaya inay shaqaystaan in haddana waliba qof Soomaali iyagu magacooda la sheeganaya inuu sida u dhibaatay aad baan uga xumahay. kala waxaan rajaynayaa inuu meel walba video gaari doono dhalinyartan sida looga digo kolabo tiradan hadda ka aan ku sheegayo oo 800 iyo xogaaga ah haddaadan ka mid noqon aad ka mid ahayn maanta maalin baad ka soo mid noqon doontaa ka bacdina aad u noqon doontaa dhibana ninkan waa haddii ay nala qabanin oo aadan hadeer nala gaarin oo aan soo fashilinin oo arrimihiisa bulshada soo hortusin. waa arkaysaa waxaan lacag aad arkaysaa dhammaan waa lacag dhalinyarta Soomaaliyeed laga aruuriyay qaarkood baa deyn ku soo qaaday qaar baa walaalada iyo qaraabada iyo ahlada ka soo bariyay qaar baa si maxaa la yiraahdaa xaalado kale ay ku jiraan ku keenay haddana sidaas oo ay tahay ninkaas ayaa si fudud gacanta loogu shubay. Axmed Cabdiqaadir Muuse la dhahaa kullabo telefoonada uu isticmaalo oo hadda uu isticmaalay waa kana telefoonkan waa mid WhatsApp aad ugu isticmaalo laakiin telefoon samnad ah ayuu u isticmaalaa iyo hormuud lacagaha uu ku shubto inta badan telefoonada. marka waxaan rajaynayaa dhalinyaro videogan hadduu ku soo gaaro insha Allah inaad u share gareyn doonto oo weeraan asxaabtaada qof aad isleedahay dhibtan way gaartay ama way gaar doontaa isku day inaad asxaabtaada la wadaagto si ay uga noqoto digniin ay ka fojignaadaan dhibaatooyinka dhalinyarta si galaan maalinta ka dambayso oo waliba qof Soomaali ah ayaga diirkooda la mid ah uu sheeganayo. dhammaan waxaan aad u jeedo waa wax isaga uu isticmaalay sida u jeedida waxaas oo lacag ah waxay u badan tahay lacag qaarkoodna isaga dib iskugu celisay suuq geyn oo aga dhigto qaabna waxay u badan yihiin wax ka qaaday dadka Soomaaliyeed qaar baa ganacsata lacag aad u tiro badan oo marka la qiyaasay aad u tiro badan $200,000 gaarayso ayuu ninkaas si sahlan ku qaatay.